dalada nabadeynta haweenkan ahay degmada Kismaayo moodane madaxweyne sahlan baan u deerahayaa wasiirada oo dhan sahlan baan u deerahayaa moodane xildhibaanadeeyo xaaja gooyade xiriirka Jubbaland nabad buu xambaarsan yahay salaanka bacdi maanta waa maalin weyn oo loo asteeyay maalinta nabadda adduunka marka laga hadlayo nabad waa meesha ugu dambaysa ee qof bini'aadana uu ku xasili karo oo uu isdhihi karo maanta nabad baad haysataa oo uu ku seexan karo Soomaalidu waxay ku maamaadaa rag gogashiisa maxay tahay rag gogashiisa waa nabad marka ma u bedelna anaga dad gogashiisa waa nabad ilaahayga nabadana siiyay ee Jubbaland maanta aan ku naaloonayna muxuu ahaayay aan ku jiifna aan ku soo toosayna ayaa mahad iska leh qaasatan waxa mahad iska leh ciidamada Jubbaland ee u istaagay inay nabadda sugaan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee iskaashanaya ee mar walba u taagan in ay cadawga Soomaaliyeed ee dhibaatada ku haya dalkan iyo dadkan inay ka ilaaliyaan ayaa mahadda labaad iska leh mahadda kale waxa iska leh madaxweynaheena sharafta leh Axmed Maxamed Islaan maxay ahayd hoggaanka nagu hoggaaminaya wadada fiican ee ummadan ay maanta maraysa ama ay ku nooshahay ninka hoggaanka u haya ee wadada fiican ee aan ka xarka lahayn ku hagahaya ayaa mahadda kalena iska leh inta ka bacdi maanta maadaama ay tahay maalintii nabadda adduunka waxa halkan jooga mudana madaxweyne iyo wasiir iyo xildhibaanayaal halkan waxa jooga gabdhihii dalada nabadeynta degmada Kismaayo ee iska lahaa barnaamijkan sida qaaska ah uu u quseeyo ayaa meeshan maanta fadhiya oo ka kooban 180 gabdhood oo loo soo tababaray sida ay nabadda uga shaqeyn lahaayeen sida isku xirka bulshada iyo maxay ahayd ay dhibaatada ka dhax jirta degmada Kismaayo ay u xallin lahaayeen u taagna ayaa maanta meeshan fadhiya barnaamijkan maanta saan u qurux badan oo arkaysaana waxay soo bilaaween bishan September kowdeedii inuu saan u dhacay barnaamijka quruxdan iyo sharaftan maanta aan aragna ay u dhacdana ayaga ka soo shaqeeyay taaniyan waxa jira 60 dhalinyaro iyo odayaal iyo gabdho isugu jira oo la yiraahdo kaaf macnaheedu waxa weeye waa isku xirka bulshada degmada Kismaayo iyo booliiska ayay ka shaqeeyaan waa dad loo tababaray oo aad nabadda uga shaqeeya
marka maadaama dadkaasi maanta ay boqol iyo dheeraadka ah maxay ahayd ay ka shaqaynayaan nabadda annagu waxaan jeclaysanay maadaama aan intaasoo nabada intaasoo magaciisa aan soo shaqaynay annaga bil sharafteena waxaan ka sugaynaa madaxweynayaasha Jubbaland. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxaa Xaliimo Faarax Godone waxaan executive director ka ahay ama maamulaha hay'adda SWSO Somali Women Solidarity Organization oo mar walba u taagan nabadda sidii ay haweenka uga qayb qaadan lahaayeen waxaa maanta farxad weyn ii ah in aanu si buuxda uga soo qayb galnay abaabulkeedii iyo maxay ahaydey qabashadeedii maalinta 21 September kaasoo ku aadanaa maalinta nabadda adduunka loo asteeyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta ay ka soo qayb qaateen ilaa 200 oo haween ah oo ku labisan dharkii caddaa ee nabadda taas waxay ku tusaysaa sida haweenku ay u jecel yihiin nabadda annaga haddaan nahay SWSO mar walba waxaanu u taagannahay in ay Soomaaliya nabad noqoto oo visionka annaga uu yahay in Soomaaliya ay nabad noqoto in dawlad buuxda aan helno in maxay ahaydey laga qayb qaato nabadda deegaanka sidaa darteed waxaan boorinayaa sida maanta dhacday oo kale toole ee haweenka uga qayb qaateen maalinta nabadda inay uga qayb qaataan qabashadeeda run ahaantii magaalada Kismaayo waa magaalo ay ka dhisan tahay platform ama dallad aan ka sameynay ka shaqaysan nabadda waxay astaan u tahay in nabaddu ay ka bilaabato qoyska gurigana ay aasaas u tahay hooyadu waa geed har weyn waxa isugu yimaada wiilkii gabadhii odaygii dumaashigii sodohdii wixii oo dhan baa isugu yimaada bulshadiiba ayadu waxay u tahay saldhig iyo aasaas u tahay sidaa darteed waxaan hooyooyinka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay dhammaantood iyo gabdhaha Soomaaliyeedba inay nabadda ka qayb qaataan inuusan wiil dambe colaad nagaga dhimanin inuu maxay ahaydey aan qabiil iyo muxuu ahaa iska saarno in maxay ahaydey gacmaha la isqabsado in aan Ilaahay barino inuu Ilaahay Soomaaliya nabad ka dhigo umaanan istaageen inaan qudbeeyo kali waxaan rabaa inaan mahad celin dadka ka qayb qaatay xafladaan quruxda badan sida u soo agaasimeen mahad celin aan rabaa inaan u mahad celiyo waa ku mahadsantii waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo xafladda gabagabo marayso madaxweyne ku-xigeenka Maxamuud Siidaadan madaxweyne soo dhawo abwaanada dalladda haweenka Kismaayo kooxda booliiska Soomaaliyeed ama Jubbaland ee muusikada guddiga shaqaalaha rayadka ciidamada lama soo koobi karo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib maanta waa maalin qiimo badan waa maalintii nabadda adduunka loo asteeyay 21ka bisha 9 waxay ku soo aaday maalinta asbuuca ugu qiimaha badan oo la yiraahdo qalbul asbuuc oo maalin jimca ah waxa xafladda ay ku saabsan tahay oo daaran tahayna waa nabad weyn nabad qiimaheeda dadka Ilaahay hibada u siiyay inay tilmaamaan sida abwaan gantaal iyo gabadha walaasheen ahayd iyo dadkii suugaanta ku cabiray baa dhameeyay wax kasta oo bini'aadamka markaad indhaha kala qaado ama iska hortimaadaan ama aad ku hadashaa nabad baa weyn marka hadday dhibaato kala dhacday oo dad kale ku dhacday ama deegaan kale ku dhacday oo adigu aad nabad qabto waajibaadku waxa weeyaan nabad weeye inaad tiraahdo macnaheedu waxa weeye wax kasta oo nolol ah waxa saldhig u ah nabadda haddaba nabadda ka shaqeyn noloshaada walaac iyo khalkhal iyo deganaansho la'aan baad ku dhamaysanaysaa nabaddii yaa diidan weeye marka nabaddii waxaa diidan kuwuus Ilaahay adduunkana ku sharfin aakharana aan janno ku helaynin baa diidan qofka bini'aadamka oo fikiro oo yiraahdo adduunkana maxaa ku wanaagsan inaad ku noolaato aakharana aad u shaqaysato nabadda ayuu xajinayaa ninkii intaa hilmaansan
ayaa nabadda qaadaya maalmihii la soo dhaafay ciidamada Jubbaland oo nabadda u taagnaa dagaallo xoog leh qabsaday gobolka Gedo iyo Jubbada Hooseba rag aad iyo aad u qiimo badan baa ku baxay ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo ragga waxay u dhinteen inaan annaga nabad ku noolaano ku saaxanno aan ku soo toosno maxaan marka u samayn karnaa inaan u duceyno qof walba maalin buu leeyahay ubadkay ka tageen daryeelno wixii ay ku dhinteen oo nabad ahayd annagana aanu xajinno oo aan nabadda ka mari dhalinno intaan ugu argudi karno intaa weeye
Oh,